xifdintiisa, axaadiista nabigeena, hingaada, tajwiidka, afka carabiga, caqiidada islaamka, ducooyinka iyo adkaaraha kale. waxaa fursadan qaaliga kuu diyaariyey madrasada Baanaafic Qur'aan Online. adiga oo jooga gurigaaga ayaa ubadkaaga kuu baranayaan tarbiyada iyo diinta islaamka. haddii aad dhegaysta ku sugan tahay qurbaha, ka faa'iidayso fursadan qaaliga ayadoo dhammaan dadka yaryar iyo kuwa waaweynba ay ka wada qayb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميل والبات شوكتان وعبد محمود قلا يا برنامج كيدين كايمان جيرين معهد كنبض يا بلشده. برنامج كمان انت waxaynu ku eegaynaa sida aad ku aragtaan fiidiyowga horudhaca ah inay dadka Soomaaliyeed runtii hoos u eegaan oo iyagu naftooda aaminaan, inay dadkooda aaminaan, inay kartidooda aaminaan, inay qarannimadooda aaminaan, inay sida ummadaha kale u dhaqmaan, inay sida ummadaha kale u fikiraan. maalin waxaan idin tusay ama soo bandhigay fiidiyow aan ku duray ama ku diiday ama ku saluugay sida ninka la yiraahdo Sheekh Kishka oo culimada Soomaaliyeed hoos ugu dhigay isagoo ah wadaad Soomaaliyeed oo u fadilay culimada kale oo meelo Carabta iyo wadamada Islaamka kale. arrintaas waa ayaan daro, waana arrin muujinaysa qofka Soomaaliga ah inaanu qofka kale ee Soomaaliga aanu iimaan ku qabin, inaanu kalsooni ku qabin, inaanu aaminsanayn inuu wax goyn karo iyo inuu wax geli karo iyo inuu wax qaban karo. arrintaas marka waa arrin khatar ah. halkan fiidiyowga aan idin tusay waxaa la soo geliyay meelahan ma garanaysaa channel YouTube ayaa la soo geliyay. waxaana xayeysiis loo samaynayaa oo xayeysiis samaysanaya dad Soomaaliyeed oo doonaya inay Quraanka iyo diinta baraan carruurta Soomaaliyeed. laakiin markaad aragto dadka xayeysiiska lagu soo qaatay waa carruur Asian iyo ma garanaysaa Hindi iyo Pakistani wax aynkaas, wax muuqaal carruur Soomaaliyeed leh ama wadaad Soomaaliyeed muuqaalkii wax leh oo halka wax dhigaya ma jiraan. arrintaas marka waa arrin runtii aan fududayn weeye oo sidaan hore idinku sheegay muujinaysa inaynaan inagu nafteena is aaminsanayn, ayna tahay inaynu cuqdada caynkaas ka baxno. wadaadkaas maaragtay xayeysiiskaas samaysanaya waxay ahayd inuu carruur Soomaaliyeed oo wax baranaysa oo si fiican u labisan oo sharaf leh iyo wadaad Soomaaliyeed oo wax u dhigaya uu maaragtay uu arrinta soo geliyo halka soo geliyo. oo markay waalidiinta Soomaaliyeed iyo carruurtooda doonaya inay wax baranayaan markay arkaan ay wax ku farxaan, dadkoodii wax qabsanaya ay arkaan, carruur kale iyaga la mid oo la muuqaal oo wax baranaya ay arkaan. arrintaas macnay samayn lahayd, waana waxa cid walba sameeyaan. markaan fiidiyowgan diyaarinayay waxaan raadiyay bal ummadaha kale si wax u xayeysiistaan. hadaad aragto Nigeria xayeysiisanayo iyaguna dadkoodii bay soo bandhigayaan, Indonesia sidaas oo kale dadkoodii bay soo bandhigayaan, Pakistan sidaas oo kale, Masaarida iyo Carabta sidaas oo kale. inaga maxaa ina faquuqay marka oo inaga dhigay kuwo dhaqankooda iyo afkooda iyo caadadooda iyo dadkooda iyo wax walba liida. maxaa inaga dhigay? arrintan waa arrin loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan. anigu waxaan qabaa markaad kaasoo kala aragto inaydan waxba ka qaadan, waayo Soomaalinimo ma muujinayo, waana muhiim Soomaalinimo. walaalayaal, islaamnimada maanta waxaa ka xog batay qowmiyadda magaciisiga. qowmiyad ayaa ummadihi noqdeen iyo wadamo iyo magaciisi. wuxuu yiri ninkii safiirkii Soomaaliyeed oo nin qaali ahaan jiray Maxamed Cusmaan Cumar wuxuu fadhiyi jiray Hindiya muddo dheer iyo meel badan buu ka shaqeeyay. laba wiil oo Soomaaliyeed oo la xiray ayuu rabay Soomaaliya inuu geeyo waagi dawladdu burburtay 90maadkii horaantiisii. fiiso transit ayuu Masar uga waayay, Hindiya siisay halkaas uu marsiiyay. marka labada wiil wadamadaas Asia bay mid ku xiraayeen oo daraagiya maaqa waxba kale loo haystay. laakiin adigu nin wuxuu ahaa qiimo badan oo la maqlo oo loo istaago waa la ixtiraamo, arrinta uu soo daayay. waxaan marka idinka wadaa waxaan haysku halaynina isla buwaagtiisii uu qoray oo Soomaaliya markay saa u baaba'aysay uu qoray gaar ahaan waagi Baydhabo lagu
baaba'ayay dadkii gurmaday maxamed cismaan wuxuu yiri reer xamar waxaa nin reer xamar u ahaa oo dadka shangaaniyo iyo xamar weyne iyo dega wuxuu yiri mahmaahab iyo banaadir waxaan ku mahmanaa buu yiri qofkii wax kuu tara qofkii abaal kuu gala waa loo gudaa haddaadan gudi karinna waa la sheegaa marka dadkii Soomaaliya u gurmaday oo lacagaha bixiyay waaga dhibaatadu in haysatay ayuu tahay 100,000 bay bixiyeen wadamada carabta oo qariga ah qatar iyo masar iyo magaciis 20,000 100,000 dollar reer galbeedkina waxay bixiyeen malaayiin 20 milyan 30 milyan maxaan ku dhahay 10 milyan 5 milyan buugiisa raadiya la yiraahdo the nation driven to despair marka maxaan idin ka wadaa walaalayaal dadkan haddaad idinku muslimnimo iyo magaciisi aad haysaan iyagu ma hayaan marka adigu marka taadaha iloobin hadday cid haysana waa wax yar weeye marka taadaha iloobin dadkaaga ha liidin dhaqankaaga ha liidin waxqabadkaaga ha liidin taariikhdaada ha liidin carruurta Soomaaliyeed haddaadan u sheegin taariikhda dadka Soomaaliyeed yaad u sheegaysaa waxa laga yaabaa ninka Soomaaliyeed markuu ka hadlayo taariikh inuu nin Arab ama nin magaciisiya ama nin Masar u halgamay uu sheego oo aanu sayidkii u sheegin oo Sheekh Barsane u sheegin oo ragii ma garanaysaa shabeellada hoose iyo halka wax iska dhiciyay uusan u sheegin oo uusan cidna xusin waana ayaan darro jirta weeye marka waxaan idin kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta Soomaaliyeed gurigiina ka bilaaba caruurtiinu inay dadkooda inay sharfaan iyo inay wax leeyihiin iyo inay taariikh leeyihiin aad ku ababisaan aad u sheegtaan ay ka sheekaysaan aad halkaas suurtid masawirradii dadkii Soomaaliyeed soo halgamay qabiil iyo balaayo iyo kan iska dhaaf aadan cadde aad suurtid sayid maxamed aad suurtid ma garanaysaa cabdullaahi ciise aad suurtid dadkii SYL aad suurtid يعني dadkii ummadan wuxuu soo qabtay aad surtid soo ma garanaysid marka idinkay idin jirtaa saad isu maamuleysaan adduunku maanta meeshaad moodeysaan ma aha meeshaad moodeysaan inuu marayo iyo islaamnimada iyo waxaad ku gabanaysaan ma jiraan idinku ha isliidinayaan cidla la idinka tagin nimankaas Soomaaliyeed haddaan anigu ay channelkayga oran lahayn xayeysiiska samee runtii waa ka diidi lahaa waxaan oran lahaa wax Soomaaliya ii keena carruur Soomaaliyeed iyo macallimiin Soomaaliyeed dadkaygii baan wuxuu gudbinayaa wax dadkayga anfacaya oo ay garan karaan oo fahmi karaan oo ay maaragtay la muuqaal iyo la midab iyo la macaamila keena maxaa anigu Indonesia iyo Pakistan iyo magaciisi yaa naga quraan iyo diin badan Soomaali yaa naga quraan iyo diin badan uma baahnin cid kale inaan ka soo qaadano waxyaabaha caynkaas marka walaalayaal dadka Soomaaliyeed aynu ka fiirsano sidaynu u dhaqmayno oo taariikhdeena iyo qarannimadeena iyo dadnimadeena sidaynu maartay kor ugu qaadayno ama u hagaajinayno aynu ka fiirsano sida aynu isula dhaqmayno dhexdeena aynu isula dhaqano si ixtiraam iyo nidaam iyo magaciisi leh muranka iyo kan iyo buuqa iyo qajajaca iyo qabyaalada yareeya waana inay arrintaanu ka bilaabato dadka baraaruga qaba dadka wax garanaya ummadaha waxa haga dabaqadahooda sare iyo dabaqadahooda dhexe dadkooda wax bartay dadkooda hantida leh dadkooda wax garanaya elite ma afarta qof oo ugu sareysa ma laakiin guud ahaan dadka caynkaas ummadaha haga waxbay qoraan waxbay ka hadlaan dabadeedna way ku amal falaan qofkii ka leexda marka waa la diidaa waa laga istaagaa looma qoslo looma magaciisa waxa dhaano sax maaha waxaad samaynaysaa saasi ummadaha dhaqanku ku bedeleen haddaad akhrido Yurub iyo dhaqanku soo ahaan jiray waad naxaysaa haddaad akhrido 500 sano iyo arrimuhu say ahaayeen 400 sano iyo waad naxaysaa halkan Mareykanka qaar baa waagii ay intaanay warshadaha yeelan iyo dadku beeraha ku tiirsanaa qaar bay cadaankii oo baa fakhri baa dilay markaas cudurro ku dhaceen dadka cudurraha ku dhacay gooryaan iyo balaayo ayaa galay markaas iyagoo dhan si foolxun u muuqdeen oo aad ka naxayso dadka kale dabaqada waxay istaan dad ladan bay ahaayeen waxayba u haysteen dad aan waxaanba laga badbaadin karin oo maaragtay nacaladu meel uga dhacday laakiin waa la bedelay يعني waxaan ka tusay dhaqanku soo ahaan jiray siyaabaha ay cuni jireen siyaabaha maaragtay u dhaqmi jireen dadka la iska dili jiray oo waa falalow la oran jiray waxa lagu sameyn jiray haddaad akhrido waad yaabaysaa waa foolxumo laakiin
waa la bedelay dad baa waxaa bedelay oo ka shaqeeyay waana inaynu helno inaguna dad caynkaasoo kale wax u hagaajiya halkan barnaamijka aan idinka soo jeedinaynaana taasay qayb ka tahay aanu doonayno inaynu isa saxno is hagaajino waan rajaynayaa inaad aduguna nagala qayb qaadato at least adugu doorkaaga bar adugu aad qaado baraarugo adugu taada aad ka shaqayso ciddi kale aad gaarsiin kartana oo ama aad gaarsiiso waa cabdi maxamuud qalac iyo barnaamijka idinka imaan jiray macadka nabadda ee bulshada walaalayaal maanta halkaasaan ku joojinaynaa